macluumaadka ku saabsan saraakiisha ka tirsan hay-adda sirdoonka ee ruushka ee shaqada laga joojiyey. sida ay daabaceen qaar ka mid a warbaahinta, madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ayaa soo saaray qaraar uu shaqada uga joojinayo ilaa iyo 150 ka mid a saraakiisha hay-adda sirdoonka ee dowladda ruushka kadib markii ay ku fashilmeen dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine, sidoo kalena lagu eedeeyey inay si hoose ula shaqaynayeen sirdoonka Maraykanka. saraakiishan oo ka tirsan laanta sirdoonka ee FSB loo yaqaano ayaa shaqada laga eriyey iyadoo la tixraacaya carada uu madaxweyne Vladimir Putin uu ka qaaday guuldarrooyinka isdabajooga ah ee inta badan reer galbeedka ay baahiyaan in ciidamada ruushka ay ka soo gaareen howlgallada Ukraine ka soconaya. sidoo kalena dhammaan saraakiishan Putin uu eriya ayaa waxay ahaayeen shaqaale ka tirsanaa waaxda shanaad oo la aasaasay sanadkii 1998 xilligaas oo madaxweyne Putin uu ka ahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka. waxaanay ka soo shaqeeyeen dalalkii midoogii Sofiyeed. ujeedadan waxay ahayd in dalalkaasi ay ku sii hoos jiraan gacantii midoogii Sofiyeed. saraakiishan waxaa kaloo lagu warramaya inuu ka mid ahaa madaxii adeega hay-adda sirdoonka Sergey Basera oo 68 sano jir ahaa, waxaana loo diray sida la sheegay xabsiga lagu magacaabo Lebordovo oo ku yaala gudaha magaalada Moscow kadib markii xabsi guri la geliyay bishii hore. waxaana weli ku socda baaritaano ku saabsan wax isdabamarin, waxaana xusid mudan in xabsigan hadda lagu xiray Sergey sirdoonka ruushka ay u adeegsan jireen su'aalo weydiin iyo jirdil intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida sida warbixinta lagu sheegay. waana xabsi ay maamushay hay-adda nabad sugidda federaalka, waxaana uu leeyahay qayb dhulka hoostiisa ah oo dadka inta badan lagu toogto. xogtan waxaa qarxiyey oo bannaanka keenay Christopher Gorozev. wuxuu ahaa agaasimaha fulinta ururka loogu magacdaray Bellingcat oo ahaa urur madax bannaan oo mucaarad ah, kaas oo horey daah uga qaaday sumaynta 2 ruux oo maxaabiis ahaa oo raashka ku sugnaa oo Salisbury lagu magacaabo, iyo sidoo kale 2018 dhacday oo uu isla isaga daaha ka qaaday. Gorozev waxaa kaloo uu sheegay in saraakiisha shaqada laga eriyey inay xog been ah u gudbiyeen madaxtooyada oo ku saabsan xaaladda dhabta ee dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine ka hor duulaanka. waxaan dhihi karaynaa in kastoo tiro badan oo iyaga ka mid ah aanan la xirin, haddana kama sii shaqayn doonaan hay-adda FSB-da, ayuu sidaasi u sheegay warbaahinta kadib markii waraysi uu bixiyey. bishii la soo dhaafay wakiilada laanta sirdoonka ee dowladda ruushka FSB ayaa sidoo kale baaritaano ku sameeyay in ka badan 20 cinwaan oo sida la sheegay ku yaala agagaarka magaalada Moscow ee caasimadda dalka ruushka, maadaama badankood ay baadigoobayaan saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka oo looga shakiyey inay xiriir ay la leeyihiin saxafiyiin kala duwan kuwaas oo macluumaadyada sirdoonka Maraykanka u sii marsiin jiray. dhanka kale in Putin oo Basera uu ahaa madaxii sirdoonka oo u diray xabsiga aadka looga cabsi qaba ee lagu magacaabo Laberdova waxay fariin xoog leh u tahay madaxda kale ee Raashiyaanka, gaar ahaan kuwa aanan la dhacsanayn go'aankii uu ku weeraray dalka Ukraine. sanadihii ka horreeyay duulaanka ruushka ee dalka Ukraine, laanta sirdoonka ee ruushka waxay ku howlaneed marka la eego warbixintan. sidoo kalena warbaahinta reer galbeedka, gaar ahaana warbaahinta dalka Britain, ayaa si weyn u qoraya macluumaadka ku aadan in ka badan 100 saraakiisha sirdoonka ka tirsan in shaqada laga joojiyey. sidoo kale laamaha ammaanka ee ruushka ayaa balaayiin dollar waxay ku khasaariyeen isku dayo la sheegay inay ku doonayeen inay taageero uga helaan shakhsiyaadka taageersan ruushka oo xubnaha ka ah maamulka dalka Ukraine, sida warbixintan uu ku daabacay wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska oo u muuqanaya inuu si weyn uu kaga soo horjeedo dhaqdhaqaaqyada madaxweyne Putin ee dalka Ukraine. inkastoo warbaahinta reer galbeedka ay baahinayaan macluumaadyada u muuqanaya ugu yaraan inay yihiin daacayadda been abuurka, haddana mararka qaarkii waxay soo bandhigaan xogo dhanka sirdoonka ah oo isweydaarsanayaan Ingiriiska iyo Maraykanka. dhinaca kale, xulafada aadka ugu dhow madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa uga digay NATO in haddii Sweden iyo Finland ay ku biiraan xulafada military uu hogaaminayo Maraykanka, markaasoo ruushka hubkiisa nuclearka iyo gantaalada guuxooda ka dheereeya uu geyn doono gobolka lagu magacaabo Kaliningrad oo ku yaala wadnaha Yurub. Finland oo xuduud gaaraysa 1300 kilomitir la wadaagta ruushka iyo Sweden ayaa ka fikiraya inay ku biiraan xulafada gaashaanbuurta NATO isla xagaagan. Dmitry Medvedev oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha ammaanka ee ruushka ayaa sheegay in haddii Sweden iyo Finland ay ku biiraan wadamada gaashaanbuurta NATO, markaas ruushka uu xoojin doono ciidankiisa dhulka, badda iyo cirka, gaar ahaan badda Baltic loo yaqaano. Medvedev waxaa kaloo uu si cad u sheegay in nuclearka ay ugu goodiyeen ciidamada iyo sidoo kale madaxda dowladda Finland aysan ku jirin hadal dambe oo ku saabsan in wadamada Baltiga ah oo bilaa nuclear ah ay suuragal noqon doonto inay qayb ay ka noqdaan wadamada gaashaanbuurta NATO. ma jiri doono hadal dambe oo ku saabsan in badda Baltiga nuclear ay ka caaganaan doonto
waa in dheelitir awoodeed la soo celiyaa ayuu yidhi medvedev oo ah madaxweynihii ruushka ilaa waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay rajeynayaan in finland iyo sweden ay caqligooda kaashan doonaan oo aysan ka mid noqon doonin waddamada gaashaanbuurta nato, taas oo caqabad kale oo ku soo socota dowladda ruushka loo arkaya wakhti xaadirkan. maxaa kaaga baxay warbixintan? qaybta hoos aragtidaada ku reeb. aad baad u mahadsantaha. markaana aynu eegno madaxweynaha xilligiisa sii dhammaanaya ee faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu wajihi doonaa hogaamiyaha midigta fog ee Marine Le Pen lagu magacaabo doorashada wareegga labaad ee madaxtinimada dalkaasi oo lagu wado inay qabsoonto 24 bisha Abriil aynu ku guda jirno. labadan hogaamiye ee Macron iyo Le Pen ayaa horey ugu tartamay wareeggii labaad ee doorashada madaxtinimada sanadkii 2017. marka laga yimaado doorashooyinka dalka Faransiiska ka soconaya, loolanka doorashada Faransiiska waxaa hareeyay oo saameyn xooggan ku leh dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka. dagaalka labadani quwadood ayaa hadda sida dadban wuxuu ugu dhex marayaa jiidaha hore ee dalka Ukraine. waxaa kaloo u muuqanaya inuu hadda u soo wareegay gudaha magaalada Paris ee dalka Faransiiska. waxay ku dagaalamayaan sidii mid walba saameyn ugu yeelan lahaa doorashada iyo in la doorto musharax uu aad mid walba u doonayo in doorashada uu ku soo baxo. Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub waxay gar iyo gardarraba ay wataan oo ay doonayaan in mar kale doorashada uu ku soo baxo madaxweynaha iminka talada haya Emmanuel Macron, iyagoo ka cabsi qaba in ay soo baxdo haweeneyda Le Pen lagu magacaabo, taas oo marar badan ku celcelisay inay aad ula dhacsan tahay siyaasadaha Putin. madaxweynaha iminka talada haya Emmanuel Macron lagu magacaabo ayaa markii labaad u tartamaya doorashada. markii ugu dambeysay waxay ahayd guul weyn oo isaga iyo xisbigiisaba ay ka soo hooyeen kadib markii doorashooyinkii uu isaga ku soo baxay sanado ka hor ay ka dhaceen gudaha dalka Faransiiska. haweeneydan waxaa la sheegaa la tartamaysa Emmanuel Macron in 68 ku dhalatay magaalada Faransiiska ku taalla ee Neuilly lagu magacaabo, waana gabadha ugu yar ninka asaasay xisbiga National Front ee Jean-Marie Le Pen, waxaana sida la sheegay ee u dhashay xaaskiisii hore ee Pierre lagu magacaabo. waxay cilmiga sharciga ka baratay magaalada Paris laga soo bilaabo 2009 ilaa 2019. waxaa Le Pen la sheegay in xiriir ay la lahayd Louis Elliot oo ahaa xogayaha guud ee National Front laga soo bilaabo 2005 ilaa 10kiina. waxaa la sheegay in ay madax ay u noqotay ama ay noqotay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga National Front la yiraahdo. marka taariikhdeeda aan halka ku soo koobno, waxaa jira dagaal adag oo hadda u dhaxeeya labada dhinac ee Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Ruushka. wareegga koowaad ee doorashada Macron qiyaastii 28% ayuu ku guuleystay, halka gabadhan la sheegay inay ku guuleysatay qiyaastii 24 ilaa 23%. maadaama hadda ay dagaalamayaan Mareykanka iyo sidoo kale Ruushka, mid walba waxa uu doonayaa in ruuxa isaga u taageersan yahay uu ku soo baxo doorashooyinka ka dhacaya gudaha dalkaasi Faransiiska. waxyaabaha ka soo kordha guud ahaan barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaa.